Sida aynu wada ognahay, adduunku waxa uu soo maray marxalad dagaal oo aad u fara badan, waxaana ka mid ah dagaalkii labaad ee adduunka oo ay isku baabi'iyeen wadamo aad u fara badan, malaayiin qofna lagu laayay. Sidaas awgeed, dagaalkii labaad ee adduunka waxaa dhacay dhacdooyin kala duwan oo fara badan, waxaana ka mid ah qiso dunida ka yaabisay, waxayna qisadan ku saabsan tahay nin u dagaalamay wadamo kala duwan xilligii dagaalkii labaad ee adduunka. Ee ku soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta. Yang Kyung-jong asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa in yarta reer Kuuriya. Wuxuu dhashay 3 Maarso 1920. Wuxuu ku dhashay meel markaas loo yiqiinay Haejo. Xilligaasi labada Kuuriya ayaynu maanta naqaano maysan ahayn laba wadan oo awood leh, waxay ahaayeen goob ay xukumaysay Jabaan laga soo bilaabo 1910. sanadka markuu ahaa 1938, Yang Kyung-jong oo markaas ku jiray da'diisa 17aad ayaa ku biiray ciidamada Jabaan oo loo yiqiinay Imperial Japanese Army si uu ula dagaallamo Midowgii Sofiyeet. Yang Kyung-jong ayaa u diyaar garoobay dagaalkii uu la geli lahaa Midowgii Sofiyeet, isagoo markaas tababar xoogan ka qaatay ciidamadii Jabaaniiska. Dagaalkii dhex maray Jabaan iyo Midowgii Sofiyeet wuxuu ku dhammaaday guuldarro u timid reer Jabaan iyo guul raacday ciidamadii Sofiyeetka oo loo yiqiinay Red Army. Ciidamadii u dagaalamayay indha yarta Jabaan ayaa intooda badan waxaa qafaashay Midowgii Sofiyeet, halka intii soo hartay loo diray meeshii loo badnaa. Balse Yang Kyung-jong ayaa ka mid noqday ciidamadii ay qafaasheen Midowgii Sofiyeet. Ciidamada Red Army ee Sofiyeetka ayaa la wareegay goobta maanta loo yaqaan Kuuriyada Waqooyi, halka Kuuriyada Koonfureedna ay xukumaysay Mareykanka. Ciidamadii u dagaalamayay Jabaan ee uu ka mid ahaa Yang Kyung-jong ayaa waxaa xabsi u taxaabay ciidamadii Midowgii Sofiyeet oo loo yiqiinay Red Army. Sanadkii 1943, Yang Kyung-jong ayaa lagu diray ciidamada Red Army ee Sofiyeetka, waxaana loo diray goob markaas 7,000 oo kiiloomitir u jirtay si uu ula dagaalamo ciidamada Jarmalka ee uu hogaaminayay Adolf Hitler. Dagaalkaas ayaa waxa uu ka socday dhulka maanta loo yaqaan Ukraine, halkaas oo markii dambe Yang Kyung-jong ay ku qabteen ciidamada Jarmalka. Sanadkii 1944, waxaa Yang Kyung-jong si khasab ah loogu diray ciidamada Jarmalka, waxaana gudaha loo sii geliyey qaaradda Yurub, isagoo loo sheegay inuu ka mid yahay ciidamada difaaci doona xeebaha gobolka Normandy ee dalka France oo ahayd goob uu xukumayay Jarmalka. 6 Juun 1944, waxaa xeebaha gobolka Normandy soo weeraray ciidamo loo yaqaanay Allied Troops oo ah ciidan ka kala socda Mareykanka, boqortooyada Ingiriiska, Kanada iyo qaar ka mid ah ciidamada Faransiiska. Hadafka ciidankan ayaa ahaa inay ka saaraan ciidamada Jarmalka xeebaha gobolka Normandy ee dalka France. Maalintii uu dagaalkan dhacayay ayaa waxaa loogu magacaabay D-Day. Ciidamada Nazi ee uu hogaaminayay Adolf Hitler ayaa guuldarro kala kulmay ciidamadii iskaashaday ee Allied Troops. Mar kale, Yang Kyung-jong ayaa gacanta u galay ciidamadii Mareykanka, balse markan ayaa ciidamadii Mareykanka waxay ogaadeen in ninkan uusan ka mid ahayn ciidamadii Jarmalka, balse uu ka mid ahaa maxbuustii ay soo qafaasheen Midowgii Sofiyeet. Ciidamadii dalka Mareykanka ayaa waxay ninkan u sheegeen inuu yahay muwaadin Mareykan ah, maanta laga bilaabana uusan ahayn maxbuus ama mid marba waddan si khasab ah ugu dagaalamaya. Yang Kyung-jong waxa uu ku noolaa dalka Mareykanka, isagoo markii dambe ku geeriyooday gudaha dalka Mareykanka sanadkii 1992. Taariikhyahanada qaar ayaa sheegay in ninkan uu yahay ninka keliya ee u dagaalamay 3 waddan xilli lagu guda jiray dagaal u dhexeeyay gebi ahaanba dunida oo dhan, waxayna qisadan ninkan ay ka dhigtay mid laga sameeyay filim la magac baxay My Way ee la soo daayay sanadkii 2011.